السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي عزت بيغوفيتش waxa uu dhashay 8 bishii 8 1925 waxa uu ka dhashay kuna dhex barbaaray qoys muslima. Waxa uu wax ka bartay magaalada Sarajevo taasoo ka mid ahayd boqortooyadii Yugoslaviya markii uu 15 jirsaday. Waxa uu ku biiray jamciyadda Shabaan al-Muslimiin oo markaa xiriir la lahayd jaamacadda Ikhwaan Muslimiinka ee Masar. xilligaas Bosnia waxa ay isku bedeshay xiriir dagaalkii labaad ee adduunka taasoo ay isku haysteen muwaadiniinta Serbiyaanka ahayd Shuuciyiinta iyo waliba naasigii Jarmalka kuna dartay Jamhuuriyadda Croatia taas oo markaa madax banaaneyd oo madaxweyne u ahaa Marshal Joseph Tito. Bosnia waxa ay ka mid noqotay Jamhuuriyadda Midowga Yugoslaviya kadib jabkii naasiga. Marshalna waxa uu ku xukumay si bir ah kamana ay badbaadin Begovic iyo asxaabtiisii oo markaa ka tirsanaa Shabaan al-Muslimiin waxaana la xiray sanadkii 1946 waxaana lagu xukumay 3 sano oo xariga. Begovic waxa uu dhameystay xukunkiisii waxaana uu soo baxay 1949 mana uusan joojin dhaqdhaqaaqiisii siyaasadeed. isla markaana waxa uu la xiriiray gudoomiyihii Shabaan al-Muslimiin Xasan Berber kaas oo la xiray kadibna la daldalay. waxa kale oo la xiray hogaamiyayaashii jaamacadda. Begovic umanayna sugnaan door siyaasadeed waxa uu go'aansaday inuu naftiisa dhiso waxaana uu qaatay shahaadada PhD-ga waxaana uu bartay cilmiga dhaqaalaha. 1962 waxa uu bartay 4 luqadood oo kala ah Ingiriisiga, Carabiga, Faransiiska iyo Jarmalka. waxa uu dhexda u xidhay akhriska falsafada, fikirka iyo barashada bani'aadamka oo luqadda Carabiga loo yaqaan al-Culuum al-Insaaniyya. wuxuuna ka qoray aragtidiisii fikradeed buugga al-I'laan al-Islaami. Begovic kitaabka waxa uu kala kulmay dhibaatooyin fara badan halkaas oo Shuuciyiintu ku eedeeyeen inuu oogayo shareecada Islaamka waxaana la mamnuucay in la faafiyo kitaabka. 1983 waxay ku eedeeyeen inuu aasaasay dawlad muslima waxayna ku xukuntay isaga iyo 12 kale oo mufakkiriin ahaa 14 sano oo xariga. Begovic markii uu ka soo baxay jeelka isagoo sii tababarnaanaya Yugoslaviya waxa ay gashay jawi siyaasadeed oo cusub waxaana waddanka ka hirgalay nidaam xisbiyeed kaas oo Begovic ka qayb qaatay. waxaana uu aasaasay al-Xisb al-Camal ad-Dimuqraadi kaas oo loo aasaasay muslimiinta Yugoslaviya. 1990 waxa dhacday doorashadii ugu horeysay ee baarlamaan waxaana ku guuleystay xisbigii Begovic badanka kuraasta baarlamaanka waxaana lagu qiyaasay 33% waxaana uu sidaa ku noqday madaxweynaha golaha madaxda kaas oo ka koobnay 7 qof oo ka kala socday Jamhuuriyadda weyn ee Yugoslaviya. waxaana uu damacay inuu isbahaysi xukuumadeed la sameeyo Serbiya iyo Croatia. isbahaysiga oo dumay 2 sano kadib waxaana muuqatay waan dagaal kadib markii ay baxeen 2 xisbi oo kale waxaana gooni u goosatay Slovenia, Croatia bilowgii 90-maadkii waxaana meesha ka baxay Jamhuuriyaddii weyneed ee Yugoslaviya waxaana meesha timi Serbia. Begovic waxa uu cutami weeyday kamid ahaanshaha Serbia waxaana uu dalbaday gooni u goosad. waxa uu ilaamiyay bilowgii 1992 afti gooni u goosad ah inkastoo ay hanjabaad ka yimaanayeen Serbiyada weyn waxaana codeeyay dad gaaray 99.4 waxayna doonayeen gooni u goosad waxaana la ilaamiyay Jamhuuriyadda Bosnia ee madaxa bannaan. Bosnia waxa ay doontay ictiraaf laakiin waxa bilowday dagaal ay bilowday Serbia waxay kaashadeen iimaankoodii iyo sawirkoodii inkastoo aanay haysan sanad dhammaystiran. Begovic waxa uu la tacaamulay ganacsadayaashii hubka si ay u hubeeyaan ciidankiisa. markii ay soo gaadeen Carabtii Afgaaniyiinta ahaa waxa uu Begovic hogaamiyayaashii u bandhigay inay iska tagaan iyo inay ka hoos dagaalamaan awaamirta ay bixiyeen ciidankiisu uma hoggaansamaan waana ay ka yeeleen. dhamaadkii Agosto 1999 Serbia waxa lagu qasbay wadahadal kadib dhimashada in ka badan 10,000 oo Serbiyaan ah iyo kufsiga 20,000 oo dumar ah iyo hooy la'aan soo waajahday in ka badan 2.2 milyan oo qof intii u dhaxaysay 1992 ilaa 1996. Begovic waxa uu qoray buugaag badan waxaana ka mid ahaa al-Islaamu bayna ash-Sharq wal-Maghrib, Urubi ila al-Hurriya, النهضة الإسلامية, الإعلام الإسلامي, أسئلة لا مفر منها, سيرة الذاتية. Begovic waxa uu ka tagay hadallo dhaxalgal ah waxaana ka mid ahaa hadalladiisii murugada iyo waabiyeelid la'aanta waxaan dooranayaa murugada hadilina kaneecada ee qallajiya biyo fadhiisimeedkeeda. xayawaanku waxa uu qaraar leeyahay marka uu gaajoodo bani aadamkuna marka uu dhergo. muslimku wuxuu u dhaxeeyaa 2 uun inuu adduunka bedelo iyo inuu isku dhiibo isbedel. hadday noloshu kala kaxayso dadka masaajidku wuu kulmiyaa. Cali Cizet Begovic waxa uu dhintay 2003 waxaana uu dhintay wadne xanuun. Allah ha u naxariisto.